السلام عليكم. لبدا كون iyo 12 website-ka rasmiga ee qaramada midoobay waxa lagu faafiyay warbixintan. qaramada midoobay waxay dhaleecaynaysaa wadamada talo wadamadaas maxay sameeyeen. waxaan sheegaynaa ama kelmadda waxaan ugu dhawaaqaynaa sida ay u qoran tahay. qaramada midoobay waxay dhaleecaynaysaa wadamada zinada xaaraantinimeynaya. yacni qaramada midoobay si cad ayay waxay ku leedahay. waliba arrinkan wuxuu imaaday kadib kulan. qaramada midoobay waxay dhaleecaynaysaa wadamada zinada xaaraanta u arko. arrinka cajiibka isla qaramadaas midoobay warbixin ay AIDS-kan ka qortay mowduucan halistaan maanta ka hadlayna waxay leedahay sababta koobaad ee faafida cudurkan waa galmada sharci darrada 1981 tirada dadka qaba cudurkan AIDS-ka waxay ahaayeen caalamkan oo dhan qiyaastii 100,000 oo qof 81 laakiin daqiiqadan aan hadlayno tiradaas waxay gaartay 38 milyan oo qof laga soo bilaabo 81 ilaa waqtigan hadda aan noolnahay waxa uu dhimatay cudurkan wax ka badan 40 milyan oo qof qiyaas kartaa 2021 aan soo dhaafnay sidoo kale sanadkan hadda 3 bilood kadib naga dhamaan doono sanad walba waxa uu dhimato 600,000 ilaa 1 milyan oo qof inta u dhaxayso ku soo dhawaada mowduucan aan uga hadlayno taariikhda AIDS-ka iyo halaaga laga dhaxlayo cudurkaas iyo waxa uu ku samaynayo jirka qofka uu ku dhaco waxaana ku soo gunaanudaynaa mowduucan muuqaal iyo qiso yar oo naxdin leh koobkaada shaah soo qaado lana soco muuqaalkan ninkan sawirkiisa uu hortanada ka muuqdo waxaa lagu magacaabaa Gitan Dugas ama Patient Zero bukaankii ugu horeeyay ee la diiwaan geliyo in uu qabo HIV 1981 waa markii ugu horeysay ee la diiwaan geliyo ama aan dhahno la ogaado fayraskan HIV ee cudurkaas AIDS ka dhaliyo qofkan طبعا sababta aan qofkan u leeyahayna waan ku sheegayaa wuxuu ahaa yani shaqaalaha diyaaradaha duulimaadka diyaaradaha kuwa cunnada rakaabka siiyo meel badan ayuuna booqan jiray waa Canadays yani kuwa Faransiiska ku hadlo qofkan wuxuu ahaa qoomka maanta aadka loo buunbuuniyo طبعا waad qiyaasi kartaan qoomuluudka wuxuuna lahaa xiriiro fuuxshi rag aad u badan oo waliba qoomkaas ka mid ah qofkan haddaad waad fahamtay طبعا sababtan qofka u leenahay asaga keligii wuxuu sababay tobaneeyo rag kale ah inuu cudurkaas ku rido ayagoon xitaa ogeyn gaar ahaan California Mareykanka ayuu tagi jiray haddii aad gasho website-ka hay'ad lagu magacaabo Canadian and Foundation for AIDS Research oo Canada laga leeyahay yani oo طبعا hay'ad wadani rasmi ah waxay leedahay 1981 dadkii ugu horeeyay ee uu ku dhaco cudurkan waxay ahaayeen qoomkaas bal waxa loo yaqaanay cudurka qoomkaas inuu yahay markuu bilaabanayay 1981 California Mareykanka waxaa dilaacay waa markii ugu horeysay macnaha AIDS-ka waxaa dilaacay cudur aan la aqoonin asiibayna sanbabka sababanayana kadibna sababayo cudurro halis ah macnaha waa intaan la ogeyn waxa uu yahay yani طبعا AIDS-kana markuu manaacada jirka la dagaalamo cudurro kale ayaa ka sii dhasha wuxuuna ku faafay sida baaritaanadu ay leeyihiin qoomuluudka oo waliba waqtigaas aanan badnayn bal intii muddo ah cudurkan AIDS-ka maanta loo yaqaan waxa loo yaqaan cudurka qoomkaas ayaa loo yaqaanay isla waqtigaas waa 1980 shan caruur ah oo hooyooyinkood yihiin dumarka jirkooda ka ganacsado waxa macquul ayagoo caloosha ku jira inay u gudbiyeen ayaa laga helay sidoo kale HIV haddaba waxa laga yaabaa inaad isweydiinayso su'aal yani meesha uu ka imaaday cudurkan marka koobaad meesha uu ka imaaday muran ayaa ka taagan aan aadno Afrika Koongada Dimuqraadiga oo la rumaysan yahay meesha uu ka imaaday asalka cudurkan waxaan sheegnay in 1981 la ogaaday ama taariikhda AIDS-ka ay tahay markii ugu horeysay ee la ogaaday laakiin waxa la qiyaasayaa ilaa 1950 kontameeyadii inuu cudurkan jiray haddaba baarayaal ka socdo jaamacadda Oxford iyo Leuven oo Belgium laga leeyahay ayaa u duulay Congo bal si ay u ogaadaan sida ay leeyihiin asalka inuu halkaas ka bilowday iyo meel kale marka koobaad waxay isla gaareen waxay leeyihiin HIV-ga sababo طبعا AIDS-ka waa virus isbedelay yani oo markii hore shambaansigan ku dhici jiray yani cudurrada duurjoogta ku dhaco haddaba siduu bani aadamka ku soo gaaray waxay leeyihiin bani aadamku wuxuu ku soo gaaray dhinaca dhiigga ugaarsato ama xitaa ayaga weeraro u bahalkaas soo qaaday shambaansiga kadibna qof uu dhiig ka keenay ama xitaa ayagoo ugaarsanay ama xitaa inay cuneen adu say ahaataba dhinaca dhiigga ayuu bani aadamka ku soo gaaray kadibna markuu bani aadamka galay fayraskaas asalka ku dhici jiray duurjoogtaas uu isbedelay sida hadda maanta aan u maqalno kale koronaha mid labaad mid saddexaad mid afaraad ayuu macnaha fayraska kala duwan oo la isleeyahay talow talaalkii hore ma lagu daaweyn karaa ayaa sii dhalanayo sidoo kale mar kale arrinkan sida ay isla gaareen galmada xaaraanta ayaa sabab u ah waxay leeyihiin sababta keentay in uu koonka ku faafo yani AIDS-ka inuu koonka ku faafo markii koobaad waa markii la diiwaan geliyay
dalkaas laga hirgeliyey khatareen malaayiin shaqaale rag u badan ay adeegsadaan kiinshaasi ku siyaaci jireen dadku iyo dumar aana badnayn shaqaale rag malaayiin ah iyo dumar faraku-tiris ah kadibna waxaa dilaacay ganacsi aad u xun guryaha dumarka jirkooda ka ganacsada waxaana baahay xaalad fuxsho wadareed ah keentayna in cudurkaas uu faafo 1981 ilaa 92 waa 12 sano ma qiyaasi kartaa daawade in muddadaas yar uu aidisku noqday dilaaga koobaad ragga da'dooda u dhaxayso 25 ilaa 44 dalka Mareykanka laakiin Mareykanku 96 ayuu si xawli ah ula dagaalamay ma ahan in ay daaweeyeen in daawo u helan ilaa hadda daawo looma helin tallaal looma helin fayraskan laakiin dhinaca wacyiga iyo baaritaanada aad ku badan ee sameynayaan ayaa hoos u yara dejisay maanta Mareykanka 1,200,000 oo qof ayaa qaba cudurka AIDS-ka aan kula wadaag xoogaa xaqaa'iq ku saabsan cudurkan cudurka AIDS-ka waa mid ka mid ah khataraha ugu waaweyn maanta ee bini'aadamka hor yaalla طبعا بما كسبت أيدي الناس AIDS-ku wuxuu sababay markii la ogaaday ilaa hadda dhimashada wax ka badan 40 milyan oo qof ilaa hadda wax daawo ama talaal looma hayo cudurkan caalamkan 43 milyan oo qof ayaa qaba cudurkan 25 milyan oo kamid ah ay qaaradda Afrika ku nool yihiin intooda badanna wadanka South Africa arrinka naxdinta leh markaan ka hadlayna cudurkan waxaa jira ku dhawaad 2 milyan oo caruur ah da'dooduna 15 sano ka hooseyso laakiin qaba cudurkan ay ku daareen hooyooyinkood ayagoo caloosha ku jira طبعا haddaba cudurkan sidoo wax u dilaa marka koobaad yani way kala yihiin HIV oo ah fayraska cudurkan iyo cudurka AIDS-ka magaciisa ayaad ka fahmi kartaa طبعا wax uu jirka qofka ku sameynaayo fayraska naqsiga difaaca jirka markuu qofka ku dhaco wuxuu dhulka dhigayaa difaaca jirkiisa yani qofku wuxuu noqonayaa sidii tusaale ahaan beer oodnayd xilli abaar ah beer la waraabiyo barwaaqo ah kadibna hal mar yani ooda laga qaaday kadibna lagu fasaxay duurjoog baahan beertaas waxba kama soo harayaan fayraskana waa saasoo kale difaaca jirka ayuu dhulka dhigaa difaaca qofka uu ku dhaco yani wuxuu noqonayaa mid eber ah cudur walba kugu dhacana saameyn ayuu qofku ku yeelanayaa la naga badbaadiyo insha Allah nagu dhici doono hargab qandho yar yani shay markii hore qofka caadi u ahaa ayaa dhulka dhigaya maadaama cudurka طبعا markuu jirka soo galo uuna wax kala aadaynin yani fayraska markuu qofka jirkiisa galo wax kala ma sameeynayo wuxuu raadinayaa difaaca jirka cidda ugu horeysa ee uu la dagaalamayo waa difaaca jirka halka cudurrada kale difaaca jirka uu difaaca macnaha jirka ilaa ugu targalay uu raadsado laakiin AIDS-ka wuxuu bartilmaameedsanaya difaacaada ilaa qofku uu noqdo mid difaac la'aan oo eber ah qofku marka koobaad markuu AIDS-kan ku dhaco wuxuu dareemayaa qandho madax wareer murqaha iyo kala goysada xanuuna jirka oo yani booga ka soo baxbaxaan haragiisa barar qanjirada kala duwan gaar ahaan kuwa dhuunta shuban daran in uu culays ka waayo yani aad u caatoobo qofaac habeenkii inuu dhidido qodobkan soo socda waa muhiim aad ayuu muhiim u yahay hay'adaha qaramada midoobeyna طبعا kama maqlaysid waxaa jira xadiis uu nabiga yiri sallallahu alayhi wasallam lam tadhhar al fahishatu fi qawmin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw qawm fahisha kuma faafto ila ay macnaha banaanka soo dhigaan haddii arrinkan u dhaco fasha fiihim at-ta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw waxa ku dhacay cudurro dadkii ayaga ka horeeyay ayna aqoonin يعني هذا AIDS كان كهذلين كويس ديتنكي يعني dadkii 18 ka dhashay wali waa dhalinyaro طبعا qiyaas kartaa cudur ay malaayiin qof u dhimanayaan 4 sano ka hor ayuu soo baxay ummad walba sida rasuulku leeyahay faaxishadaas ay ku faafto ilaa ay ku faanaan banaanka soo dhigaan hadduu arrinkan ku dhaco waxa ku dhacayo cudurro weligood ayna aqoonin yani xitaa fiiri maalmihii hore ee la soo dhaafay waa tii aan maqlayni markii ugu horeysay cudur aan markii ugu horeysay maqlayno juudaanka daanyarta magaciisa oo sidoo kale ka bilowday qoomkan aadka loo buunbuuninayo يعني وعذر مركي ugu horeysay aan maqlayno waliba wuxuu ka bilowday jasiirad Spain ku taalo iskugu tagayeen yani boqolaal kun oo qoomkaas dabaaldeg ay ku sameeyeen halkaas ayuu ka bilowday cudurkan AIDS-ka 90% wax ka badan waliba 99 milyan wax ka badan waxa sabab u ah galmada sharci darrada wadamada muslimka waa kuwa ugu yar caalamka cudurkan AIDS-ka maadaama ay yartahay طبعا yani qofka wadada qaldan maraya ayna badnayn qof iyo laba way jiraan laakiin wadamada ugu hooseeyay qabitaanka cudurkan intooda badan waa muslimiin yani hadda 20ka dal ugu hooseyso yani 30ka dal ugu hooseeyo waa muslimiin waxaana daliilku ugu filan hadda anaga Soomaalihan fiiri kadibna waxaad fiirisaa wadamada dariska nala Kenya waxay ku jirtaa wadamada yani faraha xun oo ku haya cudurkan caalamkana wadanka Koonfur Afrika ayaa number 1 ku dhawaad 8 milyan oo qof ayaa qaba cudurka AIDS-ka waxaadna ogaataa yani mar walba uu fisqigu kordho badato طبعا wiilasha iyo gabdhaha saaxiibaha haddana aan isqabin in ay ka dhigan tahay AIDS kordho waliba nasiib xumo yani sanadadii u dambeeyay yani AIDS-ku uu soo taraya xaalka hadduu sidan ku sii socdo
الله المستعان يعني ايدس كو سي بدنايا isbitaalada weydii sababtana dabcan waad qiyaasi kartaan maanta nasiib xumo waxaa jira yani rag social media ku jira boqolaal kun oo qof ay ku xiran yihiin laakiin dadka ugu horeeya ee dabcan sunaynaya wada aan weligana arag Soomaalidu ayna aqoonin wiil iyo gabar aan isqabin laakiin saaxiiba hal meel wada degan hadana soo baxaya inaad aragto yani wiil iyo gabar leey waa saaxiibo muslimiin ah Soomaali ah hal guri isla degan aan isqabin heblaayo waa saaxiibta hebelna waa saaxiibka heblaayo يعني حتى laga yaabo loo qoslay loo saabinayo waana soo guurinta si in dhaxirnaan ah dhaqan yani dadkii xitaa asalka lahaa ay ku gubteen ay sidii uga baxaan ay raadinayaan wiilal gabdha isla degan haddaba si aan uga hortagna anaga Soomaali ahaan cudurkan uma baahanin marka koobaad in aan qaramo midoobay ka sugna baaq bal hay'adahaas kala duwan waa asbaabta faafinta cudurkan waad xasuusataan dabcan bila aanan badnayn ka hor yani fadiixadii heerka caalami ahayd markii ay shaqaalaha UNICEF kufsadeen kumanaan caruur ah laguna tilmaamay micnaha shay bahlima oo waliba yani rag mas'uuliyiin hay'adaas kamid ay iscasileen waxay fadiixad heer caalami ah UN ka hadaba iyo laamaheeda kala duwan dhibaatada ayay qayb ka yihiin ee xalka ma ahan waxaan xasuustaa mar BBC Soomaali طبعا BBC hay'ad Ingiriis ah ay faafin jirtay wacyigelin ku saabsan yani wacyigelin lagu qoslo marka uu barnaamijka dhamaanayo ayay waxay raacin jireen wacyigelin yar oo lagu qoslo ah si aad cudurkaas uga badbaado xiro intaadan xiriirkaas adan samaynin waxaas xiro halka islaamku uu kuleeyahay aslan wala taqrabu ha u dhawaan asal islaamku wuxuu kuleeyahay haba u dhawaan aslan agtiisa ha marin wala taqrabu zina laakiin hay'adaha qaramada midoobay kuwaas boonbooninayo laamahooda kala duwanna waxay leeyihiin yani bahalkaas xiro si uu kugu dhicin waxaa jira markii laga hadlay dadka qabo dad badan yani laakiin wax dambi aan ku lahayn cudurkan ku dhacay laakiin sida caruur caloosha hooyadood ku jira qof guursaday yani qof qabo isaguna ogeyn rag dumarku aadaba inta aan ku soo gunaanadin muuqaalkii aan idin sheegay oo ah yani qiso naxdin leh hadii lacala uu jiro qof imtixaankan ku dhacay nooc uu ahaadaba cudurkan ku dhacay yani imtixaankan galay bini aadamku tabcan uu qaldami karaa qof hadda qaldamay ama nooc ay haataba ay si ugu dhacday ha faquuqin yani gurigeena laga cayrinin tacaamulka caadiga cudurka kuma gudbo macnaha waxaan ka hadlaynaa hadii uu jiro qof imtixaankan ku dhacay wadadayana lagu tuurin qisooyinka runtii iigu naxdinta badnaa waxaa ka mid ah muuqaalkan soo socda nin dhalinyaro ah yani sida asaga uu sheegay xaaskiisa ayuu ka qaaday sida asaga uu sheegay annaga wax kaloon dhihi karna ma lahan wuxuu yidhi xaaskaygan si xalaali ku guursaday ayaan ka qaaday shabeellooyinka kadibna wuxuu ka hadlayay qisadiisa iyo sida ehelkiisa ay guriga uga cayriyeen muuqaalkan hore wejigiisa uu qarsoon yahay laakiin mid kale waxaa jira wejigiisa uu soo muuqdo waxaan u mahad celinaynaa marka koobaad dhalinyaradii muuqaalka soo duubay tviyada kala duwan ee baahiyey muuqaalka ayaan idiin daynayaa qodobkan intaanu ku egyahay allah naga badbaadiyo wacyiga faafiya intaanu ku egyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkan waa hoyga uu ku nool yahay cabdinaasir oo ka mid ah dadka la nool cudurka HIV AIDS-ka ee Muqdisho ma joogaan garbihiisa waalid walaal ehel iyo asxaab oo ay Muqdisho wada joogaan waxayna ugu dambeysay warqabkooda kadib markii ay ogaadeen in uu qabo cudurkan HIV-ga horta aabe Allah u naxariisto hooyaday isoo korisay gobolka waxaan ku dhashay Qoryooley xanuunka markaa dareemay oo familka u sheegay familka waxay igu sameeyeen faquuq waxa la dhaho alaabta ay banaanka ii soo dhigeen waxay dhaheen la xanuunsan tahay saas aan ii soo faquuqay uqdad xun ay gashay waxay ii sheegeen ilaa xanuunkan aan qabo HIV uurku taalo ayay ku noqotay cabdinaasir markii uu ogaaday in cudurkan HIV-ga ay qaadsiisay gabar uu guursaday taas oo la noolayd cudurkan kadib isaga carartay qoyskiisa isla markaana waqtigan aan la ogeyn halka ay ku dambayso mana haysto daryeel bulsho iyo mid dawladeed cudurkan marka hore waxaa ka qaaday galmo ka qaaday gabar guursaday gabadha markaa guursaday gabadha aqoon uma lahayn